madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maruu maanta ka qudbadanayay madalo xadhigga kaga jiray bandhigga carwada wax soo saarka warshadaha dalka taasi oo ka qabsoontay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo dhaafka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo sidoo kale xaalad siyaasadeed oo muddooyinkii u dambeeyay soo kala dhex gashay xukuumaddiisa iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka Somaliland isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo si qoto dheer uga hadlay arrimahaasi buuq siyaasi ah jira waxaan leeyahay Somaliland maanta intii odayaasha ay ganacsatada ay dalka wax ku lahayd ka dhaxaysan oo joogta haddayna doorashooyin qaban waqti ugu suurta gashan taladeenu way murgaysaa waa dhab istiiti karbe waxaan u baahanahay doorashooyinku way daahay waxay u daahay waa tamar daraanteedna siyaasadeed marka hore oo dee curdinaysa wax kala mardi xisbiyadu waa curdin siyaasadoodu waa curdin qolada xisbiyada inteeda hogaamisa dadku ma ka mid nahado ilaa meer sawada kama soo dhicin talada ciidanaysa ilka bilowga ah ayaan la hardamayna waxa curdina sharciyadeeni oo imka dhismaaya oo iyagina dee baahidooda iyo dawladooda marka duruufahaas warshadaheena u daaheen ee leeyahay u jabilayahay ee warshadii sawirka dhisan kara laanahay ee wadooyinkeenu wuxuu yihiin ayay siyaasadeena u leeyahay u gaabanaysa waxaan leeyahay mudnaanta ay wasiina marka hore inuu siyaasadda jiro oo isugu tago oo doorashooyinku soo qabsanayaan inagoo wada jira oo dhinac walba ka eegnay oo isku haaraamin oo ciidana cid ku maagin aynu u qabsanahay labada gore iyo golaha baxay dowladaha hoose iyagu xoog kuma fadhiya mana diidana in la bedelo waayo xeerkaas aasa waa rag iyagu garanaya mas'uuliyadda oo dee xilkiiba jooga hal qodob oo aynu mahadinay laakiin dib badan baa jira waxaynu ku darsanay dastuurkeena oo leeyahay waa marka quraan talada sax ah helay golada doortay baa bedeli kara dadka imika aad u qeeriya dhibsanaya golo 15 sano maraya guurtooda soo maraysa kuwii kale saddex ku socda waxay la degilaadahay dawladda Soomaaliya qodobkaas ay leedahay golo bedel ha gaaro waayo raagideedu waa dhibaato laakiin waxay dhaantaa foodada iyo isdhexyaaca la waayicid ma xalaalaynayo inay dooxaan golayaasha lagu daahay tamar darreeda keentay waxaan waa maanta waxaa la saaramayo dee xoogaan baan oo cid walba ragga golayaasha jooga inay diyaar u yihiin in la bedelo laakiin waa si fashan cilmi u leeyahay ay suuqa iyo haramadii eed xaq uma laha waa kulamid sharcigu baa qabta wakaa gudoomiyay baarlamaanku aroorta wixii oo dirin iyo sharcigu dhaadalo kale oo diyaar ana saxaab ka guurtana waa xaal laakiin waxa weeye dee waa in wixii naga dhinac dhamayna oo nacalo kala doorashada saddex qodob hortaagan ka ugu muhiimsan waa dhaqaalaha waxaan leeyahay Soomaaliya hadday doorashada dhaqaalaha bixin weydo oo cid kale ka bixiso wariga socon mayso nin taladiisa ka bixiso qof taladiisa cid u maamusha hadee meel ma gaaro waa inuu bixin karaa wax badan ma aha dawlad ganacsato dadka ka shaqeeyo hawsha yareeya inagoo warga doorashada inaanay ahayn kursi doonaya tahay nolosheedii iyo maamulkeedii markaynu isugu tagno waray wada qabsan karanayo oo sariyeeyay khilaafaadku waa wax la dhigto ka wareeyo waa dhaqaalaha ay door taagan commission kan imika taagan waa masala basiida waa wax xalli karo waa inta la iska imanayo muxuu ku basiid yahay dadku marka ay wax isku qabtaan laba hal bay ku heshiiyaan maslax iyo xaagaan haddii xaagaan mas'ala sacuudana sharciga la raaca labadiba awoodeeda waran sharciga way noo yaala xaagaan maslaxga way noo yaala labadooda qoon kara laakiin miir qabal soo yimaadeen yaa waana lagu wada hadlay miir qabal soo tasoo habay waa kuraasada baarlamaanka lagu fadhiyo oo in badan laga cawdo oo la yiraahdo tabash iyana waa masala basiida war maanta masaynu yeelaa miyaynu karaynaa tan dib ma u dhiganaa tan hore ma u qaadnaa wax la garan waayo maaha waayilkii wuxuu sugaa sidaa darteed waxaan leeyahay Soomaaliland maanta qorshaha qura u yaalaa
waa inay isugu tagtaa iyadoo wada socota oo kala raaliya oo tashatay inaan doorashada qabanno muddo gaaban